bixisay inta gobolladii aad gumaysanaysan gardarana ku faantahay wale geeska afrika kuma gamaadin wale geeska afrika kuma gamaadin kasoo gaarto inta ay difaacayaan dalka iyo dadka ee dagaalka kula jira argagixisada al-shabaab iyo kuwa kale ee doonaya inay baaritaanka qoysaskooda iyo dadka shacabka ah micno gaara ayay u samaynaysaa ciidamada kitaabku magacaaban taasoo ay ugu maanayaan in la dhigo isbitaalada gaarka loo leeyahay ama kuwa bulshada ay la wadaagaan ishka garanaya geyfane asluubtaan garanaya nabad sugidda gamadiiday baan garanaya ishkooda xoogaan garanaya magabada buliiskaan garanaya geyfane asluubtaan garanaya nabad sugidda gamadiiday baan garanaya ee CBC mission oo ah qalab lagu baaro bukaanada raajada lagu ogaado jabka gaarka qalabka qaliinka iyo qalabyo kale ayaa lagu soo kordhiyey isbitaalka sida uu sheegay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Badhurey oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka xoogga dalka bulshada ragayga gooba dagaal garab joogsanaya anna gaabsan maaye inkastoo aan gabarahay hubkan guud ka saaraya rasaastaan gardaadsanaya bulshada ragayga gooba dagaal garab joogsanaya agaasimaha isbitaalka xoogga dalka Khadiija Imaan Caynti ayaa sheegtay in hadda isbitaalka xoogga uu dhammaystiran yahay qalabkiisa caafimaad ayna ka faa'iidaystaan afarta qaybood ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo cid walba oo u baahan adeeg caafimaad loo qabto inta gashantidoodii kooxeedu baxayee gooyinaysidnaasaha inta gashantidoodii kooxeedu baxayee gooyinaysidnaasaha nabadkangiman kuma guushidi wale carruur labaad oo caafimaad ayaa ku dhex taala xerada jenaraal Gordon ee magaalada Muqdisho oo aan ka fogeyn isbitaalka xoogga dalka taasoo lagu tababaro dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka laguna daaweeyo ciidanka tababarka ku qaata halkaasi waxaa ka shaqeeya dhaqaatiirtii hadda u soo dhammaaday tababarka ciidan gaar ahaan ay dhammaystiran yihiin qalabka caafimaad ugafa inuu gubanayaan garanaya ragciil gowrac maybaan garanaya gobaannimo u dirkaan garanaya agoongaha murtay baan garanaya geel jira hahawdkaan garanaya dadweyne gaasiyo baan garanaya ragciil gowrac maybaan garanaya gobaannimo u dirkaan garanaya agoongaha murtay baan garanaya geel jira hahawdkaan garanaya dadweyne gaasiyo baan garanaya adeegyada caafimaadka ee ciidamada ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu ahmiyadda hubkan waxaana qorshuhu yahay in gobollada dalka la gaarsiiyo taasoo ciidamada siinaysa kalsooni ah inay helaan taliyaha iyo telefishinka qaranka magaalada Muqdisho anna gaabsan maaye inkastoo aan gabarahay hubkan guud ka saaraya rasaastaan gardaadsanaya bulshada ragayga gooba dagaal garab joogsanaya
faantahay inta goboladoodii cad gumaysanaysa gardarana ku faantahay wale geeska afrikaad kuma gamaadin wale geeska afrikaad kuma gamaadin soomaali baan garanayaa godobteeda maqan inay goosataan garanayaa soomaali baan garanayaa godobteeda maqan inay goosataan garanayaa goyshka garanaya geyfane asluubtaan garanaya nabad sugidda gamadiiday baan garanayaa goyshkooda xoogaan garanaya magabada buliiskaan garanaya geyfane asluubtaan garanaya nabad sugidda gamadiiday baan garanayaa anna gaabsan maaye inkastoo aan gabarahay hubkan kuwani waa shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo xarunta tiyaatarka qaranka soo gaadhay iyagoo si weyn ugu soo diyaar garoobay ololaha isxaqaan waxaana shaqaalaha kuwa helinaya shaqada wasiirka gaadiidka duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Omar oo sheegay in ay markasta diyaar u yihiin isxaqaan isbedel weyn laga dareemayo xarunta tiyaatarka qaranka aniga bil ka hor ayaan arkin joogay maanta oo soo laabtay waxaad arkaysaa isbedelka laga sameeyay hal bil marka waad qiyaasi kartaa meeshan marka ay dhamaato insha Allah tacaala isbahal wuxuu noqon doonaa la mid ah waagi hore insha Allah tacaala haddii la isku taxo gacanta la isqabsado oo la dadaalo abaabulo dadku waxay u baahan yihiin in la abaabulo haddii la abaabulo gacanta la isqabsado waxaa la samayn karaa wadan ayaa la horumarin karaa sidoo kale waxaa iyana geestooda ka howlgalayay barnaamijka isxaqaan ee dib loogu dayactirayo xarumaha muhiimka u ah dalka guddiga madaxa bannaan ee dib eegista dastuurka maxamed daahir afrax gudoomiyaha guddiga ayaa carabka ku adkeeyey in xarumaha madxafka iyo tiyaatarka iyo maktabaduba ay yihiin astaan qaran aan loo soo diyaargarownay in aanu ka qayb qaadano dibudhiska masraxa qaranka oo ka mid ah goobaha astaanta u ah aqoonta ummadda goobaha lagu magacaabo xarumaha dhaqanka ay ka mid yihiin masraxa qaranka waanu maanta joogno madxafka qaranka masraxa qaranka waxa weeye waa astaanta aqoonta ummad kasta iyo astaanta ilbaxnimada dhanka kale ururka u dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed oo si baaxad leh isu soo abaabulay ayaa isla shaqo adag ka qabtay madxafka qaranka oo dhawaan si rasmi ah loo dhagax dhigi doono garanaya gobaannimo u dirkaan garanaya agoonga murday baan garanaya geel jira hawdkaan garanaya dadweyne gaadsiyo baan garanaya baan garanaya gobaannimo u dirkaan garanaya agoonga murday baan garanaya geel jira hawdkaan garanaya dadweyne gaadsiyo baan garanaya anna gaabsan maaye inkastoo aan gabarahay hubkan buudka saaraya rasaastaan gardaadsanaya guul sida raggaygaan gooba tag anna gaabsan maaye inkastoo aan gabarahay hubkan buudka saaraya rasaastaan gardaadsanaya guul sida raggaygaan gooba dagaal garab joogsanaya
قيسانيسا قردران كفان تحي والله قيسك أفريكا كما قمادين والله قيسك أفريكا كما قمادين الصومالي بانقرانيا قلبتي دمقن إني قصتان قرانيا الصومالي بانقرانيا قلبتي دمقن إني قصتان قرانيا كيشكو قرانيا كيفاني أسلوبتان قرانيا نبات سوقيدا قمديد ديبان قرانيا كيشكودا حوقان قرانيا مقابل بوليسكان قرانيا كيفاني أسلوبتان قرانيا نبات سوقيدا قمديد ديبان قرانيا عنا قابسن مايه إن كستوان قبرهاي هبكان بودك ساريا رسستان قردات سنايا قول سيدا رقايقان قوبا تقال قرب جوك سنايا عنا قابسن مايه إن كستوان قبرهاي هبكان بودك ساريا رسستان قردات سنايا قول سيدا رقايقان قوبا تقال قرب جوك سنايا كشانتي دادي كوهد وبحياة كوينة يسلنا سهار كشانتي دادي كوهد وبحياة كوينة يسلنا سهار النبات كنجيمان كما قوشيدي والله نبات كنجيبان كما قوشيد الصومالي بان قرانيا عدوكي وقفينو قبانيا قرانيا الصومالي بان قرانيا عدوكي وقفينو قبانيا قرانيا رقعي القورح ميبان قرانيا قباني موتركان قرانيا أقون قامر تيبان قرانيا قيل جرا حاوت كان قرانيا تدوين قاسي بان قرانيا رقعي القورح ميبان قرانيا قباني موتركان قرانيا أقون قامر تيبان قرانيا قيل جرا حاوت كان قرانيا تدوين قاسي بان قرانيا عنا قابسن معايا إن كستو عن قبرهاي هبكان وتساريا رسستان قردات سنايا قول سيدا رقايقان قوباتك عنا قابسن معايا إن كستو عن قبرهاي هبكان وتساريا رسستان قردات سنايا قول سيدا رقايقان قوباتك القرب جوك سنايا xubno ka tirsan ciidanka booliiska